Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kasoo dhawaada asxaabteena sharafta leh buuggeena aan ku leenahay YouTube-ka Soomaali Tijaabo 12. Fiidiga kasii horeeyay marda waxaan soo dhigay anigoo akhrinayo aayad kursiga. Fadlan fiidiyogaas dadka kumatiga ayaa kuu soo dhigaya akhriso dhegeysa hadii lahaa dadka kumatiga kuu soo dhigay dhegeyso kadibna like saar fiidiyo ilaa waa qur'aan kadibna kumatigaaga wax ra'yigaaga ka soo baxso. Maanta waxaan rabnaa inaan niila wadaago su'aal ayaan rabaa inaan ka jawaabo. Su'aashan qof ma isoo weydiinin laakiin aniga badanaa waxaa soo xushaa su'aalaha idinka aad u baahan tihiin in ay jawaab u heshaan. Waxaa soo xushaa su'aalaha u baahan tihiin inaad jawaab su'aalaha aad u baahan tihiin inaad iga jawaab ayaa soo xushaa. Aniga qalbigeena ma ku jiro laakiin waxaa isleeyahay daawadayaashaada su'aashan u baahan yihiin. Talab su'aashaas maxay tahay? Su'aashaas waxay tahay taraawiixda fadhiga ma laga dugan karaa? Taraawiixda fadhiga lama dugan karaa? Taraawiixda fadhiga lama dugan karaa? Taraawiixda ileen waxaan aragnay dad badan oo istaagayo oo daalay ileen dadka badanaa energy ma hayaan way daalayaan way istaagayaan. Taraawiixda waa aragteen qur'aan badan lagu tujinaya hadduu shiiqa dooro wuxuu ka soo bilaabayaa tusaale ahaan waaya shiiq wuxuu ka soo bilaabayaa albaqro wuxuu ku geyn karaa tilka rusulu fadalna bacduhum ilaa halahaas adiga ma istaagsanaan kartid fadhiga ma ku dugan kartaa? Su'aashaas jawaabteedu waa haa laakiin shardi taraawiixda fadhiga waa shardi haddii aad adiga masaajid aad joogtid masaajidkaasina dadka taraawiixda dukanaya ay istaagsan yihiin kaligaad ma fadhiisan kartid sidooda u dukaysaa waa fadli